السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muuqaalkeenan waxaynu kaga hadli doonaa ninkii aqoontiisa u adeegsaday sidii ay yuhuud u degi lahayd Falastiin. Haddaba dhacdadan waa mid taariikhda iyo aqoonta sayniska ku saabsan. Waxaan filayaa in aad wax ka faa'iideysan doontaan, khaasatan sida qofku hadduu siyaasadeeyo aqoontiisa iyo cilmigiisa u gaari karo danihiisa khaaska ah iyo midda bulshadiisa ama qolada uu ka dhashay. Dadaalkaagu waa inuu weynaadaa sida hankaagu u weyn yahay, taasoo macnaheeda ah waxa aad jeceshahay in aad gaartid waa inaad la timaadaa dadaal la mid ah. Dhacdadan waxay ku saabsan tahay ninka ka muuqda sawirkan, inkastoo waxa uu sameeyey iyo danta uu gaadhay iyo dariiqa uu adeegsadayba aysan farax gelinayn qof muslim ah, laakiin wuxuu adeegsaday aqoontiisa wuuna ku gorgortamay ilaa ay dowlado waaweyn u dhameeyeen danihiisa iyo wixii uu ku hamiyey. ninkan magaciisa waxaa la dhahaa Chaim Weizmann, waa ninkii ka saxiixay dowladda Britain in ay yuhuudda degto dalka Falastiin, waana ninkii dowladda Mareykanka ka dhameeyey in dowladda cusub ee Israa'iil la aqoonsado. Laakiin sidee ayay ninkan ugu suura gashay arrintaasi? Waa su'aal aan kaaga jawaabi doono, balse ha degdegin. Weizmann wuxuu ku dhashay tuulo ku taala waddanka Berlais xilligii boqortooyada Ruushka. waxaa la dhalatay 14 carruur ah, laakiin intoodaba wuu ka maskax badnaa. markuu jiray 11 sano wuxuu dhiganayay dugsiga sare. markuu gaaray 18 sano wuxuu u soo safray dalka Jarmalka si uu maadada kimistriga ugu takhasuso. kadib wuxuu u sii gudbay dalka Switzerland si uu PhD uga qaato jaamacadda University of Freiburg. kadib ayuu wuxuu u soo wareegay dalka Ingiriiska si uu jaamacadda Manchester uga noqdo professor wax ka dhiga. wax yar kadib dalka Ingiriiska waxay siiyeen dhalashada Ingiriiska maadaama Weizmann uu bartay cilmiga biochemistry-ga. wuxuu ahaa nin cilmi baare ah oo aan siyaasad ku lug lahayn markiisii hore. wuxuu badanaa waqtigiisa ku bixin jiray shaybaarkiisa, wuxuuna qori jiray daraasado dhowr ah oo ku saabsan jeermiska bakteeriyada. waxyaabaha laga baran karo. waxaa bilowday dagaalkii koowaad ee dunida isagoo jooga Ingiriiska, wuxuuna dareemay baahida baahan ee loogu baahday qalabyada dagaalka iyo walxaha qarxa, taasoo gabaabsi ka wada noqotay dunida. wuxuuna diiradda saaray sidii arrintaas loo xalin lahaa isagoo adeegsanaya aqoontiisa. markuu dagaalkii koowaad dhammaaday kadib, wuxuu Weizmann ku guulaystay inuu sameeyo maado laga khamiiriyey bakteeriyada loona yaqaano acetone, taasoo udub-dhexaad u ah samaynta walxaha qarxa, taasoo haddii ay u suuro gasho inuu sameeyo tiro aad u badan looga bixi karo baahida ka jirtay dunida markaas. dhowr sano kadib waxaa haddana qarxay dagaalkii labaad ee dunida. Weizmann wuxuu ka fikiray siduu cilmiga uu soo kordhiyey uu dantiisa ugu gaari lahaa iyo danta yuhuudda markaas oo yuhuudda loo raadinayay dhul ay degaan. waxaana markaas jirtay fikrad ah in geeska Afrika ee uu gumaysan jiray Ingiriiska xilligaas in qayb laga siiyo, khaas ahaan dalka Uganda. Weizmann wuxuu cilmigii uu soo kordhiyey u soo bandhigay wasiirka u qaabilsan dhinaca sahayda dagaalka ee boqortooyada Ingiriiska, kaas oo fikradda Weizmann u sii gudbiyey Winston Churchill oo ahaa ninkii ciidanka ugu sareeyay. waxaa lagu heshiiyey in Weizmann loo sameeyo warshad uu ku bacarimin karo bakteeriyada si loo helo in ku filan dagaalka socday markaas. waxaana si degdeg ah lagu sameeyey in ka badan 30,000 oo acetone ah. halkaas ayayna baahidii qalabka dagaalka ee Ingiriiska iyo xulafadiisa uga baxeen dagaalkii dunida labaad. Weizmann waxaa laga dhigay la taliyaha wasiirka sahayda. wuxuu kaloo bilaabay cilmi baaris kale oo cusub ee Israa'iil. intii uu madaxweynaha ahaa wuxuu juhdigiisa geliyey sidii ay aqoonsi u heli lahayd dowladda uu aasaasay, uuna ku guulaystay inuu dowladaha waaweyn ee ay Mareykanku ugu horeyso inay ictiraaf buuxda siiyaan. Weizmann wuxuu aasaasay jaamacad loo yaqaano Hebrew University ee ku taala magaalada Tel Aviv, halkaas oo uu ku dhiirigeliyey macallimiintii iyo ardaydii yuhuudda ahayd inay u soo haatiraan Israa'iil si ay waxbarashadooda uga sii wataan jaamacadda uu aasaasay. Weizmann waxaa xilka madaxweyne u sii dheeraa inuu madax ka ahaa ururka Sahyuuniyadda oo ah urur caalami ah oo ka arrimiya umuuraha yuhuudda meel kasta oo ay joogaan ilaa uu ka dhintay sanadkii 1952 isagoo 77 jir ah. daawadaha sharafta badanow, qof kasta oo caqli leh dhacdooyinka dunida wuxuu kala baxaa waxyaabo badan oo waxtar leh. bal fikirkaaga ka dhiibo oo noo sheeg maxay sheekadan kugu kordhisay, maxaadna ka faa'iiday, maxaana looga dayan karaa, maxayse ka baran karnaa.